saragta maqal wanaagsan oo wacan Ramadaan Kariim waxa la soo gaaro waqtiga nadaan oo kala awada idin soo marin jirnay war wixii deegaanka ee dalka naga soo gaaray oo si toos ah idin ka imanaya isoo naga xarunta deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga warkeegan waxa la socodsiin doonaa aniga Faarac Abdubed qodobada wararkan deegaanka ee dalka idin ka hay noogu door karoon waxa kamida adeegii daaweynta iyo qaliinka indhaha ee blaashka ahaa ee ka socday degmada Aysha ayaa la soo gabagabeeyay waxa xadhiga laga jaray 6 gibbi oo ah guriyo wadareedyo ay wada jir u fuliyeen maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo maamulka degmada Dhagaxbuur wararkan idin ka hayno dalka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sheegay in hay'adaha dawliga ah ee dhinaca horumarka looga fadhiyay inay sii xoojiyaan taabagelinta geediga horumarka qodobadan iyo xubinteennii sarifka iyo sicirka suuqa iyo xubinteennii saadaasha hawada ayay idinku daawan doontaan warkeena eega markale dawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo israagta maqal wanaagsan oo wacan kuna soo dhawaada war wixii deegaanka ee dalkan idinka haynay oo faahfaahsan adeegii daaweynta iyo qaliinka indhaha ee blaashka ahaa ee ka socday degmada Aysha ayaa la soo gabagabeeyay Cabdi Cumar iyo babaynta warkan adeegii qaliinka iyo daaweynta indhaha ee bilaashka oo muddo 5 maalmood ka socday xarunta caafimaadka ee degmada Aysha ayaa la soo gabagabeeyay waxaana bulshada ku dhaqan aagaasi ay si diiran u soo dhaweeyeen adeegan qaliinka iyo daaweynta indhaha ee bilaashka ee kooxda dhakhaatiirta ee wareegay deegaanka Soomaalida Itoobiya u fidinayeen bulshada ku dhaqan degmada Aysha iyo nawaaxigeeda waxaana adeegan qaliinka iyo daaweynta indhaha intii uu socday lagu qalay dad gaaraya 115 oo dib loogu soo celiyay aragoogii isla markaana farxad iyo reereyn ka muujinaya dhibaatadii indhalaaneed ee haysatay ee sida dhibta yar uga baxeen sidoo kale adeegan qaliinka iyo daaweynta indhaha ayaa waxa lagu daweeyay dad gaaraya 400 oo qof isla markaana la siiyay muraayado u sahlaya aragooga iyo sidoo kale daaweynta indhaha bulshada loo sameeyay qaliinka iyo daaweynta ku dhaqan degmada Aysha iyo nawaaxigeeda ayaa si diiran u soo dhaweeyay isla markaana uga mahadnaqay xukuumadooda dadaalka ballaaran ee ugu jirto sidii bulshada deegaanka ay u habaqtiri lahayd dhinac kasta iyagoo tilmaamay in hadda si dhib yar u heleen aragoogii sidoo kalena daaweyn la siiyay dadkii u baahnaa daaweynta dhinaca indhaha kooxdan ololaha qaliinka iyo daaweynta indhaha ee bilaashka ee deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii ay soo gabagabeeyeen qaliinka iyo daaweynta indhaha ay ka fulinayeen degmada Aysha oo soo kicitimay dhinaca degmada Dambal ee gobolka City sida warbixintan uu nagu siiyay wariye Mustafa Yuusuf oo ku wehelinaya kooxdan ololaha qaliinka iyo daaweynta indhaha ee deegaanka waxaana maalmaha soo socda degmada Dambal ay ka fulinayaan adeega qaliinka iyo daaweynta indhaha ee bilaashka waxa xadhiga laga jaray 6 gibbi oo ah guriyo wadareedyo ay wada jir u fuliyeen maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo maamulka degmada Dhagaxbuur sida warkan noogu sheegayo wariye Bishaar Maxamuud maadaama oo guud ahaanba deegaanka sanadkan 2009 laga hirgeliyay mashaariicaha dhismayaasha guri wadareedka oo lagaga jawaabayo baahida dhanka guryaha ayaa waxa xariga laga jaray 6 gibbi oo dhismahooda fuliyeen 3 gibbina maamulka magaalada Dhagaxbuur 3 kalena ay fuliyeen maamulka degmada Dhagaxbuur iyadoo oo si wada jira xariga uga jareen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Jarar iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka magaalada iyo waliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Dhagaxbuur haddaba waxa ugu horeyntii munaasabadii xarig jarka ka hadlay kusiisimaha gudoomiyaha gobolka Jarar ahna madaxa xafiiska cadaaladda ee gobolka Jarar mudane Abshir Maxamed Khaliif iyo maayarka maamulka magaalada Dhagaxbuur mudane Maxamed Xasan Suufi sheegana in ay miisaaniyad dhan ku baxday 9 milyan iskana kaashadeen maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo waliba maamulka degmada Dhagaxbuur wax weyn ay ku soo kordhinaysa bilicda magaalada waxaan maanta xarig ka jaray
guri wadareedkii oo ka kooban 6 baloog ee maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo degmada Dhagaxbuur ay wada jir u fulayeen kuwaas oo loogu talagalay inay maamuladu degmooyinka iyo gobolka iyo maamulka magaalada looga faa'iideeyo deegaanashooda aadna ay mataqaanaa u tahay horumar nidaam fiican oo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed Itoobiya u hindisay maamulka degmooyinka iyo gobolada waxaan xarig jaray guriyo wadareedka laga dhisay magaalada Dhagaxbuur oo ka kooban 6 gibbi oo ka kooban 4 gibbi oo maamulka magaalada miisaaniyadiisa laga dhisay iyo 2 gibbi oo lagu dhisay miisaaniyada degmada Dhagaxbuur 6 gibbi oo guriyo wadareedka oo dhisaankii quruxda badnaa ee guriyo wadareedka xafiiska dhisaan enterprise-ka hirdegan soo diyaariyay waana mid ku timid fikir ay hogaaminta sare xisbiga iyo xukuumadda dowladda Soomaalidu ay keeneen iyadoo maaragtay qorshaha guud ee heer federaal ee dhinaca guriyeynta wax laga qabanayo oo sidoo kale sidii shaqaalaha dowladda ama xubnaha shaqaalaha dowladda guud ahaan loo siin lahaa ama loogu dhisi lahaa guriyo noocan oo kala isla mar ahaantaana ay magaalooyinkeena iyo xarumaha magaalooyinkeena ay ugu soo kordhin lahayd bidix sidoo kalena waxa iyaguna ka hadlay kusiisimaha gudoomiyaha degmada Dhagaxbuur ahna madaxa xafiiska waxbarashada ee degmada Maxamed Ilyas Sarhaye iyo waliba madaxa maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ee maamulka magaalada Dhagaxbuur Cabdullaahi Amiin Axmed intaas kadib waxa kale oo waraysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadan xariga lagaga jareeyay guriyo wadareedka laga hirgeliyay magaalada Dhagaxbuur oo iyaguna sheegay in ay ku faraxsan yihiin horumarka aan kala go'al lahayn ee xukuumaddu wado waxaan aad iyo aad u amaanayaa fikirkii keenay in ay guriyo wadareedkan 6 gibbi ka kooban oo tayadoodu ay sareyso ana waxaan ahay engineer oday dhaqameedna waana engineerna waana waa macallin bisma naga maqnaa qaab naga maqnaa weeyaan waxaan wajahaynaa kuwan oo sii tayeyno ballaarino guryahaantooda waaweyneyno ka sii qurxinaan ballan qaadayna inaan samaysano waa aragti fiican boqolkiiba boqol baan hambaliya leenahay sida loo dhisay quruxdeeda wanaageeda habkeeda haddii uunan xisbiga shaqaynayn iyo xukuumadduna ma ayna dhismeen wax walba waxaa keenay xisbiga waxaan leenahay boqolkiiba boqol baan ku mahadinaynaa hambaliyaan leenahay شهر شاقة وتشيتيفيق عالمي يثيفي ماملك مقالة Dhagaxbuur dhismayaasha mashaariicaha horumarineed ee laga wado degmada Gablalo ayaa gabagaba maraya Cadaalad Cabdifataax iyo babaynta warkan waxa gabagaba maraya mashaariicaha horumarineed ee sanadkan 2009 laga fuliyay degmada Gablalo ee gobolka City hadaba mashaariicahan ay dawladdu ka fulisay degmada Gablalo ayaa waxay isugu jiraan xarunta caafimaadka dadka iskool hoolka shirarka iyo guriyo wadareedyo loogu talagalay maamulka degmada iyo waliba xafiisyada maamulka degmada Gablalo hadaba maray soo kormeereen mas'uuliyiinta degmada Gablalo mashaariicahan horumarineed ee laga wado degmada Gablalo ayaa waxa nooga warbixiyay kormeer gudoomiyaha degmada Gablalo mudane Budul Maxamed sheegay in mashaariicdan ay marayso 95% shaqaabuur ka heleen bulsho badan oo ku dhaqanay degmadani Gablalo ka baxsan 100% bay marayaan waa dhamaystir weeyaan xarig jarkiiban taaganahay 100% saddex kamid midna waxay maraysaa 95 96 meelaha ay noo maraysaa taana insha Allah waxaan rajaynaynaa toddobaadkan inaan isla gaadho isku mar inaan xariga ka jaro afartoodoba inaan ka jaro laakiin saddex mashaariic waa noo dhamaadeen hal mid ah ayaa 96 noogu socota hadda ololaheedii iyo shaqadeedii iyo hawsheediina hadda ay ku dhamaystirmaysaa marka inaan hadii la yiraahdo aan isku mar ka jaro ayaan aad iyo aad ugu rajaynaynaa sidoo kale waxa dhankeeda nooga warbixisay mashaariicahan horumarineed ee laga fuliyay degmada Gablalo madaxa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha degmada Gablalo Marwe Yurub Maxamed sheegtay in mashaariicdan ay marayso meel gabagabo ah mashaariicdu waxay ka kooban tahay 4 mashruuc oo kala ah guriyo wadareedka iyo xafiisyadii maamulka iyo caafimaadka iyo iskoolka hadda waqti dhow baan leenahay hadda la yiraahdo in afraha kala wareegno oo adeeg loogu talagalay fuliyaan dhankoodana qaar kamid ah bulshada ku dhaqan degmada Gablalo ayaa sheegay inay mashaariicdan shaqaabuur ka heleen la markaasina ay ku maareeyeen nolol maalmeedkooda una mahadceliyay xukuumadda dowladda Soomaaliyeed Itoobiya oo fulisay mashaariicdan ay shaqaabuurka ka heleen anigoo ah Muuse Cali Jaamac oo ku nool degmada Gablalo
waxaan ka helay shaqo abuur mashaariicdan shaqo daily ah oo qaadanaynay kolkaas si fiican bay isbedel fiican bay soo kordhisay waan ku faraxsanahay waxbarasho fiican waa noo furay waa kan imika noo dhisay waan ku faraxsanahay maadaama degmada Goboladu aan ilaa ku qof ka shaqaysay ka ganacsanayso ka shaqaysay meeshani aan shaqo ka heshay maadaama haddana meeshii annaga tayadii noo reebay annaga aan leenahay meeshii waan ku faraxsanahay shaqo abuur baan ka helay waa lagu noolaaday kolka gaardiyaanka iyaan anigu ka ahay kolka bishaarada halkaa baan ka qaataa waan ka ilaaliyaa waan la joognaa ilaahayna waan ugu mahadnaqnaa dawladdana ugu mahadnaqnaa ilaahay mahadiisa maanta dawladda wax badan bay maanta ayaa noo qabata makaano fiican bay noo dhistay faa'iido badan bay noo keentay waan laga hoos joognaa waan ku alxamdulillaah inta ay noo qabatay inta ilaahay tuuta aan ka faa'iideysanay kool aan ka helay gaardiyaan aan ka helay ilaahay tuuta aan ka cunay yaa faa'iido noo soo raacda isku soo duuba mashaariicdan horumarineed laga fuliyay sanadan 2009 degmada Gabloliyo gobolka City ayaa waxay ka mid tahay mashaariicaha kala duwan ee ka socda deegaanka ee ay xukuumaddu ku horumarinayso shacabkeeda cadaalad aftaash ee maxabuud telefishinka caalamiga ESTV degmada Gabloliyo gobolka City warkan dalka idinka hayno ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sheegay in hay'adaha dawliga ah dhinaca horumarka looga fadhiyay inay sii xoojiyaan taabagelinta geediga horumarka habaynta warkan iyo wariye maxamed xasan dalkeena Itoobiya oo waqti xaadirkan ku howlan hirgelinta qorshaha GTB2ga ayaa waxa uu wada dadaal kala duwan oo lagaga mid dhalinayo horumarka qaybiisa kala duwan ee waqti xaadirkan ka hana qaadi guud ahaan badalka waxaana socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu sii kobcinayo hay'adaha horumarineed ee dawliga ah haddaba kulan ku saabsanaa sii xoojinta geed socodka horumarineed oo in muddo ah ka socday magaalada Adama ee deegaanka Oromiya ayaa la soo gabagabeeyay waxaana munaasabadii kulankaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya mudane Haile Mariam Desalegn wuxuuna sheegay in hay'adaha horumarineed ee dhinaca dawladda looga fadhiyo in ay ka soo baxaan waajibaadkooda ka saaran taabagelinta horumarka እኛ የምንፈልገው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ቢያንስ በአፍሪካ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆኑ መሆን አለባቸው annagu waxa aanu rabnaa hay'ado horumarineed oo dawli ah oo ugu yaraan wadamada Afrika la tartama amaba kuwa caalamka isla markaana ka dhisan dhinaca cudurda shaqaalaha awoodda iyo waliba nidaamka dawliga ah sidoo kale waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Haile Mariam Desalegn in laamaha horumarineed ee dawliga ah looga baahan yahay inay dabar gooyaan nidaamka dulsaarnimada